mishiinkaasi lacag inta leeg bay ku sheegeen macnaha haddii Kenya laga helayaa mashiinka inta baa mashiinka waa loo kun todo boqol wiilal aan naqaan wax joogaan Jarmalka adi lacag ay soo aruuriyeen $400 adi waa isku toostay $700 gaaray gabar ay soo wacday waxa ay aboomiya waxa maqlay mashiinka lacag ka dhimantay waaye muuqaalanka duu laakiin nimcaan hilaac waxa uu xoog saaraya isla markaana dhalinyaradu uu lacag ku siinaya labada magaalo ee Boorama iyo Ceeri Gaababa in la qabto oo gobolka Sanaag iyo Awdal ka kala tirsan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyo magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayuu nimcaan hilaac wuxuu amray in la qabto galad dagaalku taagaya nimcaan hilaac maalmaha soo socda ayuuna ka soo degi doonaa magaalada Muqdisho isaga oo safar aan la shaacin markaas ku sii tagi doono magaalada Boorama ee uu ku dhashay kuna ilmo dhalay waa nin guda biirsi waa nin ka soo jeeda beesha sharafta leh Samaroon laakiin dad wax bartay u badan yihiin kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadeyda ku xiran barteedan YouTube channelkayga haddii aad ku cusub tahay halkan waa Cabduqaadir Siisi oo si naxariis la kaaga codsanaya inaad YouTube-ka subscribe saarto gambaleelkan aad furato si aad u hesho warbixinada aan daqiiqad walba halkan ku daabaco muuqaalkan like saar waxbana ka dhibi mee walaalka Siisina waxay u gashaa like ta dhagsi si uu muuqaalkan saaxiibo fara badan u gaaro soo dhawaada mar kale alfanaan nimcaan hilaac oo ka soo jeeda beesha guda biirsi si kale haddii aan u dhigo beesha Samaroon ayaa haatan Maraykan waxa uu ka abaabulayaa isla markaana uu qorsheynayaa haatanna uu abaabulayaa ciidan aad u fara badan oo lagu qabanayo magaalada Ceeri Gaabo waa ninkii nimcaan hilaac ahaa waa fanaankii weynaaye Samaroon magaalada Laascaanood hore yaa loo qabtay oo dhulbahanta qabsaday isaaqii marka waxay isku dayayaan in ay Ceeri Gaabo dadka ay ku muquuniyaan fanaankii weynaaye nimcaan hilaac oo aad wada garanaysaan badankiin ayaa Maraykan haatan waxa uu ku abaabulayaa isagoo Maraykan jooga ayuu waxa uu aruurinayaa dhaqaale aad u fara badan isaga oo maalmaha iyo bilooyinka soo socda qorsheynayo inuu ka soo dego Somaliland gaar ahaan magaalada Ceeri Gaabo waa nin u dhashay Samaroon nimcaan hilaac dadkan aqoon dadka qaar waxa laga yaabaa inay isaaq u maleeyaan nimcaan alfanaan nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waa nin u dhashay beesha Samaroon hub aad u fara badan ayuu ku aruurinayaa markaasi magaalada Ceeri Gaabo isaga oo ku sugan wadankaasi Maraykanka marka soo dhawaada nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac maxaa ku qasbay isagoo nin dhalinyaro ah oo fanaan Soomaaliyeed ah in uu maanta galo dagaal qabiil waa qodobka adiga haatan niyadaada ka dhex guuxayo waa ku sababaynaya nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waa fanaan Soomaaliyeed wax uu horta xarash u haya nimcaan Hilaac ciidanka argagixisada ee SNM ama nimanka isaaq nimcaan fankiisa wax uu ka bilaabay magaalada Hargeysa hoballadii caanka ahaa ee Hargeysa ka dhisnaa ayuu qayb ka ahaa laakiin alfanaan nimcaan Xasan Hilaac waxa markaas lagu qasbay lagana soo raacadeeyay magaalada Hargeysa nimcaan waa kii Muqdisho yimaaday waa kii Muqdisho asaga iyo fanaaniin kale Muqdisho ayaan joogeen kadibna waa kii Maraykan uu galay markaas suur doono Maraykan ha ku galo ama naag ha u dacwooto ama line ha gato laakiin Maraykan uu galay sanado ka hor nimcaan haatan waxaa shalay loo soo sheegay isla markaana warbixinteeda xalay aan idin kula wadaago YouTube-kan aan soo dhigay in nimcaan adeerkiis lagu dilay magaalada la dhaho Lowyacade ee gobolka Awdal adeerkiis ninkii saaxiibka la ahayne hantidiisa lagu baabashay muuqaal ka horeeya ayaan uga hadlay nimcaan waa uu xanaaqay horta nimcaan adeerkiis Ilaahay ha u naxariisto shalay galaba lagu aasay magaalada Lowyacade ee gobolka Awdal adeerka nimcaan ee la dilay ninkii saaxiibka la ahayne waxa la sheegay in hantidiisa la burburiyay ciidamada Soomaaliland ilaa iyo haatan ay u hanjabayaan nimcaan marka arrinkaas uu ka carooday nimcaan hilaac marka waxa uu rabaa isagoo tuutihii ciidanka wato isagoo hub wato isagoo dhaqaale ka dhisan inuu magaalada Ceeri Gaabo uu qabto nimcaan hilaac waa nin dhalinyaro ah oo xaniya leh Soomaali doonku qayb ka yahay midnimada Soomaaliya uu jecel yahay nimcaan asaladii Somaliland wax Somaliland la dhaho ma jirto fiiri fanaan ahaw YouTuber ahaw wariye ahaw gaangister noqo hal midana mideynaa anaga dhan maxaana mideynaa calanka buluuga ee shanta xidig ku qoranta markaas dhexda uga sawiranta qofka calanka buluuga diido waxaan u aqoonsanahay inuu yahay Soomaali diid hal xabo oo noo galana lama arko nimankii isaaq ahay marka maxaa qabsaday magaalada Ceeri Gaabo haatan waxa ka socda abaabul xoogan fanaan nimcaan hilaac wuxuu la soo xariiray dhalinyaradu ka yaqaan magaaladiisii Ceeri Gaabo waa nin Samaroon ama guda biirsi
waxa uuna dhalinyarada u soo diray lacag isaga oo yiraahdo hub aruursada dagaalkana gala wariyaa nimcaan kama xumo garaadadii gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood intii yimaadeen amray in dagaal lala galo nimankan argagixisada ee SNM ama isaaq haddaan si kale kugu dhigo kama xumo nimcaan hilaac nimcaan marka wuxuu amray in dagaal laga bilaabo magaalada Ceerigaabo iyo meesha la dhaho Lowyacade iyo meesha la dhaho ninka la dhaho Boorama ayuu nimcaan wuxuu amray in la qabto nimcaan hilaac fanaanka weyn waa nin Samaroon oo gudubiirsi waa nin ka soo jeeda magaalada Boorama dhankan kale hadii la dhahayna oo dhankan kale la dhahana de niman walaalihiisa degan oo magaaladan hadeertan Ceerigaabo la qabanayo laakiin nimcaan hilaac waxa uu xoog saaraya isla markaana dhalinyaradu uu lacag ku siinaya labada magaalo ee Boorama iyo Ceerigaabo in la qabto oo gobolka Sanaag iyo Awdal ka kala tirsan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyo magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayuu nimcaan hilaac wuxuu amray in la qabto gala dagaalku taagaya nimcaan hilaac maalmaha soo socda ayuuna ka soo degi doonaa magaalada Muqdisho isaga oo safar aan la shaacin markaas ku sii tagi doono magaalada Boorama ee uu ku dhashay kuna ilmo dhalay waa nin gudabiirsi waa nin ka soo jeeda beesha sharafta leh Samaroon laakiin dad wax bartay u badan yihiin waa nin qiimo leh hadduu maanta heeriyada doonayo SNM inuu iska qaado nimcaan hilaac waa inaan ku taageernaa haddaan Soomaali nahnay waa inaan garab istaag ku siinaa waa inaan aan dhahnaa nimcaan garabkaaga allaha galo fanaan Soomaaliyeed ahayd nimanka argagixisada haddaad maanta go'aansato inaad iska dhici fanaan isaaq maahan nimcaan fanaan Somaliland maahan waa fanaan Soomaaliyeed dhalash ahaan hadii la nin isaaqa maahan waa nin Samaroon oo gudabiirsi horta intaas meel ku qorta ma fahanteen xaaladda marka Ceerigaabo iyo Boorama waa halkaas taaganta magaalada Laascaanood dagaal aad u culus ayaa xalay xilli dambe ka qarxay ciidamadii argagixisada SNM maalin walba waa la raacadaysanaya wiilashii dhulbahante SSC daraawiishtii nimankii sharafta lahaa nimankii harti ugu awood badnaa iyo isaaqa isqabta xalay waa laga awood badnaa isaaq meedadkiisa meel walba maanta uu daadsan yahay marka nimcaan hilaac wuxuu u baahan yahay in la bogaadiyo abaabulkan uu haatan Boorama iyo Ceerigaabo iyo magaalada Lowyacade uu ka wadane in garab lagu siiyo u baahan yahay dad badan waxay dhahayaan nimanka la dhaho Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo waxaa degan niman la dhaho Warsangeli ama hartiya degan maxaa nimcaan ka qusay war dhiig Soomaalinimo nimcaan wado nimcaan hilaac Boorama ninkan ka soo jeeda nimcaan waa ogahay waa nin Samaroon oo gudabiirsi Lowyacade Boorama ka soo jeeda laakiin Ceerigaabo qadiidiisa waxa soo dhaxgelinaa nimcaan wuxuu yahay Soomaalinimo wado waa nin Soomaalinimo jecel waa nin Soomaaliyo inay istaagto maanta diyaar u ah waa nimcaan hilaac marka waa in garab lagu siiyaa marka soo dhawaada marka muuqaalkan subscribe saar YouTube-kan like saar muuqaalkan share gareeya waa Cabdiqaadir Siisi oo idin la nabad geliyo mishinkaasi lacag inta leeg ku sheegeen macnaha hadii makan yaa laga helayaa mashiinka inta baa mashiinka waa diro 1700 wiilal aan naqaan wax joogan Jarmalka adii lacag ay soo aruuriyeen $400 adii waa isku toostay $700 gaaray gabar ay soo wacday waxa ila aboomiya waxa maqlay mashiinka lacag ka dhimantahay waayo muuqaalanka duu laakiin nimcaan hilaac waxa uu xoog saaraya isla markaana dhalinyaradu uu lacag ku siinaya labada magaalo ee Boorama iyo Ceerigaabo in la qabto oo gobolka Sanaag iyo Awdal ka kala tirsan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyo magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayuu nimcaan hilaac wuxuu amray in la qabto gala dagaalku taagaya nimcaan hilaac maalmaha soo socda ayuuna ka soo degi doonaa magaalada Muqdisho isaga oo safar aan la shaacin markaas ku sii tagi doono magaalada Boorama ee uu ku dhashay kuna ilmo dhalay waa nin gudabiirsi waa nin ka soo jeeda beesha sharafta leh Samaroon laakiin dad wax bartay u badan yihiin